weeye dadkii tarab loo laynayo mawduuc mawsim ku aadanba kuu suurtogeli maayo inaad ka hadashid waxaynu ka wada hadlaynaa waa maxay war dilka ha la joojiyo war dilka ha la magaciisiyeeyo war yaan muslimka lagu xadgudbin waxaan ka hadlayno waa waxyaabo aanan u baahnayn xitaa diin laakiin caqliga saliimka lagu ogaan karayo baan waxaan ka waanaynaynaa koox dadkii ka mid ah oo camal iyo shaqo ka dhigatay in waxa weeye dadka muslimiinta ah habeen walba laga ooysiiyo murugana loo soo husado waxa baladweynaha ka dhacay habeen hore waxaad u foolxun weeye munkar weeye ijraam weeye waxa weeye waxa la yiraahdo mooryaanimatii ugu foosho xumayd weeye waxa weeye dhaqan aan ahayn dhaqan islaam weeye waa dhaqan alla ka fogeynayo in la isku dhowrtana aysan ahayn dalku wuxuu ku jiraa dagaal dalku wuxuu ku jiraa khatar dadku wuxuu ku jiraa halis haddana waxaynu u dhaqmaynaa sidii in nabad weyn loo fadhiyo oo bale aysan jirin oo waa la sheekaysanayaa oo dadka dhintay 48 baa dhimatay 100 iyo siyaadana waa dhaawac hanti baa burburtay waxa weeye isha guryaha dumay dhaqaale lagu soo tabcay oo dadkaas ad arkaysaan $60 bixin la dad lamida ay samaysteen baa waxa weeye dhulka afka loo geliyay cid u gurmaraysa male cid ka daba tagaysa male haddana xaaladdu waa iska caadi haddii iyaga ay ku koobantahay waxba kaama hadlaabeen oo waxaa la dhihi lahaa meel heblaayo baa sidaa ah meel kastoo waddanka ka mid aha taargad u ah in sidaa iyadaa la yeelo markaa ku dhacay soo maa oo waxaa la dhihi lahaa hadday iyaga ku kooban tahay ha loo tago iyaga tooda ha lala xalliyo keliya laakiin teenna baanan waxa weeye loo haynin xal loo haynin oo u baahan ka hortag intaysan ku dhicin waxa ku dhacay kayrkeen kuwaana loo gurmado wixii gacno la siin karo la siiyo ikhwati alkiraam ka hadli mayno dhiigga muslimka iyo xaaramnimadiisa ka hadli mayno dhiigga gaalka musaalimka ah oon cidna waxba ka wadanin iyo xaaramnimadiis aanan muxaaribka kugu hayn oo kugu soo duulin ka hadli mayno oo waxaa shareecada meel bay dhigta caqliga xis iyo xiskana waa keenay nebi muuse calayhi salaam wuxuu dilay feer ku dhuftay nin qibti ah oo dadkiisa gumaysanayay oo dadkii dhibaatada ku hayay ka mid ahay oo reer fircoona ninkii baa dhintay ninkii markuu sidii ku dhintay xitaa nebi ma aha markaasaa muxuu leeyahay rabbi innii dalamtu nafsii faghfir lii ilaahayow naftayda waa dulmiyey ii dembi dhaaf gaal buu dembi dhaaf ka dalbanayaa inuu ilaahay ka siiya subxaanahu wa tacaala hadda maxaynu haynaa fi'o dad muslimiina oo tukanahaya oo rukuucaya oo sujuudaya oo nikaax xalaala lagu dhalay oo iyagoo dhan isku maamulay diinta islaamka aanan lahayn wax uga sarreeya intay ku soo duulaan allahu akbar dhahaya markay dilaan ka bacdina alxamdulilah dhahaya afow annaguna iyagii baan dhowranaynaa oo aan ka sugaynaa xal inuu dhinacooda ka yimaado arrinkaasaa iskiis dembi u ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi laga gelayo lagu takbiirsado haddii la xalaashado culimmadu waxay leeyihiin waa gaalnimo qofku haddii ay ka tahay ta'wiil iyo qalad ay ka tahayna jurmi weyn buu ku jiraa maxaa dhacay ilaahay macsiyo bisinkiisa laguma qabsado ilaahayna macsiyo loogama mahadnaqo waxay noqonaysaa qof alle ku jeesjeesaya qul abillaah wa aayaatih wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cudur daaranina waad gaalowdeen iimaankiinni kadib ficilkay samaynayaan oo dhan baa markii la fiiriyo gaalnimo ku soo wada aruuraya ummaddiina intay gaalaysiyaan bay laynayaan ummaddiina sidii ugaar bay hadba dhinac u yaacayaan cid yac iska dhihi kartana haba yaratay lama arko arrintaas runtii waa arrin khatuuradeeda iska leh habeen dhow wixii meesha ka dhacay waa ka tacsiyeynaynaa laakiin tacsida ka badan baa la awoodaa dadkii dhintay allah u naxariisto gabar baa loo socday baa la yidhi in la dilo gabadhi baa waxaa isku duubay nin muxaramaadka la samaynahayo oo xaaraanta ah war yaa u baneeyey inuu isku qarxiyo dad muslimiin ah yaa u baneeyey intuu miino isku soo xiro inuu qof dumar korkeeda taabto yaa u baneeyey haddana dadkii u gurmanaya dadkii dhaawacmay inta laga dabageeyo gaari in lagu qarxiyo oo daarihii iyo waxaa la yidhahdo isbitaalkii iyo goobihii aanan loogu talagelin in waxa weeye buuq lala yimaado dhibaato hore laga sii geysto yani ummadda tarab baa loo baabi'inaya yay jurbi ka galeen yay dembi ka galeen gabadha la dilay waa tuma qof intaa lagu soo tabcayo soomaali usoo kacday xaafidatun likitaab illaah ah laba shiray leedahan ka qayb galay aayaad qur'aan iyo axaadiid nabi ay ku bilowday salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waana ku dhammaysay say ummadda u wacdinaysa bal adigu suurayso marag baan alle hortiisa uga ah kuwa dilahaya qoftaas noocaas oo kale ah oo hooyada ah oo waalidka ah oo aqoonta leh oo soomaali ku soo daashay oo libinta ka dhex raadinayo libintay doonayaan iyo libinta annaga libinteenna ah laba libinoodoo isla maaha isku meel lama iman karaa kuwa taas dilay
cidna ma daynahayaan horeyna waan u sheegnay haddana waan ku soo celinaynaa dadka waxaa loo baahan yahay inay baraarugu yeeshaan dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah dadkii manaacadii baa ka luntay oo waxaad arkaysaa intay dilaan qof baa qof intuu istaago wuxuu leeyahay hadda gacan ka xaq daran baa dishaye ilaahay ha u naxariisto hadalkaa laftiisa wuxuu yahay hadal khudlaan ah ayagii baa soo istaagaya waxaa la leeyahay cinwaan weyn xarakatu shabaab oo waxa weeye sheegatay inay ka dambeeyeen dilkii meeshaas ahaa ayagoo ugu hiilinahaya islaamnimada ugu hiilinahaya war adeerow midka dhahaya gacan ka xaq daran baa dishay haddaadan dhihi karaynin cadowga najaqahayo aan iska qabanno ama allaha qabta aadan dhihi karayn iska aamus gacan ka xaq daran baa dishay qofka marka la leeyahay waa qof ku qaldamay waa laba qof oo caadi isu magaciisu intay is-ilaaqtameen uu midka kale u xoog sheegtay ama maxbad ku furay ama magaciisi yeelay laakiin aysan ahayn qofkan dhiiggiisa inuu xalaashadayo agtiisa uu gaalka yahay laakiin cadowga horarka ah ee kuu soo socda oo aanan dumar daynayn oon carruur daynayn oon ciroolo daynayn oon rag daynayn oon dumar daynayn oon mas-uul daynayn in la yidhaha gacan ka xaq daran baa dishay waa marin habaabin in la marin habaabiyo xaqaa'iqdana waxaa ka dhalanayo in dulmigu uu sii siyaado allana wuxuu leeyahay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar ha u ilanina kuwa dulmiga sameeya oo markaa naaray idin taabato ayagii baa soo istaagaya waxay leeyahay annaga ka dambayna waa xishood la-aan waa waqaaxa waa ceeb waa foolxumo waa dullinimo dumar baa laaya waanu ku faanaya billahi calaykum ayu diinin haada wa ayu caqlin haada waa diinka waxaas qaba khaalid bin waliid oo gaal ah baa waxaa la yidhi nabiga markii loo tashanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ka mid noqon dhallinyaradii loo qorsheeyey inay nabiga hal mar birta ku dhuftaan wuxuu yidhi ninna laba nin ugu tegi mahaya buu yidhi nin iga sii jeedana ku dhufan mahaya buu yidhi seef muru'adaydii iyo sharaftaydaa ka weyn mushrik baa saa garta nin iyaan iga soo horjeedin intaan dhabarka kaga imaado wax kagama dhufto kuwana intay yimaadaan oo habar yaroo meel sii socota ay midi ku dhaadaan bay allahu akbar leeyihin islamka ilahi baa u gargaaray maxay tahay waxaas sheekar lahan siiya waa ceeb weeye dadka noocaas ah weeye dadka aynu isaga maarala'na dadkaas weeye dadka jumaca iyo jamaacaadka loo oogi laayahay dadkaas weeye dadka khawfkooda uu gaarsiiyey mujtamaca xitaa inay ooyi waayaan oy dhihi waayaan hebel baana dilay laakiin ma inaad bixinaysaa maya dayuusnimada waxaa ka mid a inaad ku fiirsato xumaatada ehelkaaga dadkaagii oo la dilayo inaad tidhaahdo aniga si la ii daayo waa aamusaya dayuusnimo weeye dadka noocana in la iska dhiciyo min awjab alwaajibaat weeye shaykhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi raxmatan waasica baa laga soo warinayay isagoo ka hadlahaya difaac yacni dagaalka la yidhaahdo dafciga yuu ka hadlahayay in waxa weeye yani dafcu lcaduwi saa'il cadowga horarka ee ku soo weeraro sida laysaga dhicinayo muxuu leeyahay wa ama qitaalu dafci fahada ashaddu anwaaci dafci saa'il can alxurmati waaddiin waajibun ijmaaca dagaalka difaaca ah ee aad nafta ku difaacanayso oo lagu ilaalinayo xurmada iyo diinta lagu ilaalinayo sharafta lagu dhowrayo waa waajib buu leeyahay sharci ahaan iyo ijmaac ahaanba falcaduwu saa'il aladii yufsidu addiina waaddunya cadowga horarka ah ee diinna aan hagaajinaynin ee fasaadinaya adduunyada fasaadinaya laa shaya awjaba bacda aliimaani can dafcih wax ka waajibsan iimaanka kadib oo aan ahayn in laiska difaaca ma jirta buu leeyahy falaa yushtaratu lahu sharطan kazaadi wاraaxila inaad gaadiid haysato inay wax isuukaa dubaradiin xitaa loo shardiyi maayo bal yudfacu bixasabi اlimkaan waxaa laisaga difaacayaa hadba qofka tabartiisa say noqoto arrintaasna culimmadeenni baa isku raacday oo waa ijmaac buu leeyahy waa nusuustay u adeegsadaan markay dadka laynayaan oo ilaahay diintiisa beenta kaga sheegaan dafcu lcaduwi saa'il ilaahay oo la rumeeyo ka bacdi waajibka ugu waajibsan weeye hadduu marka ninkii ku dilayo kuu soo socdo ama kooxdii mujrimada ahayd ay kugu soo maqan yihiin macnahaad isu gaabiso isu dhuudhuubto oo aad waxa weeye dhuumasho dhabarka uu muuqdo aad u muujiso wax meesha yaallaa ma jiraan waxaa marka looga baahan yahay ummaddu inay manaaco yeelato inay awoodi karto maya inay tidhaahdo inay awoodi karto inay tidhaahdo arrintan ina bixin mayso soconna mayso inaan lagu farxin inaan loo arag wax qola haysta inaan loo arag wax adiga kaa maqano bale intay kaa maqan tahay qayrkaabay ku maqan tahay aan la dhihine beleda beledweyne joogta adna waa ku haysataa beleda xamar joogta adna waa ku haysataa beleda hargeysa joogta adna waa ku haysataa midda kismaayo joogta waa ku haysataa ta garbaarayna waa ku haysataa ta baydhabana waa ku haysataa meel laga tegi kara male garanaysaa
wax walba u gala oo suuragal ah oo xaaraan ah waa samaynayaan si ay qaayadooda u gaaraan. boosaaso dad bay baad ka qaadaan, maxay samaynayaan? qofka ku yahay maxad lacagtaan idinku siiyaa, mid reerkiisa oo tolkiisa oo iyaga ka mid ah oo mufsida bay telefoon u dirayeen, soo heel garan maysaha, soo reebel matiida la hado, waree lacagta iska bixi buu ku leeyahay naftaada ilaasho. qaayo qofku uu dhowran karo ma aha naftaada ilaasho, waddankaagana ha burburo. waxa noogu qaalisan oo haysana waa diinka, diinkii bay ku ciyaarayaan. waxa noo xigana waa dalka aan ku noolahay, ilaahay nagu nooleysay subxaanahu wa tacaala. dalkan haddii dadka laga qaxiyo gaalay mudanayaan. intii gaalowday iyagaa loo haystaa, maxaa yeelay inta maqanna iyagay usoo noqon layihiin, inta hadda beryahan qaxaysanayay ka qaxayn. maxaa la rabaa marka dadka looga baahan yahay? waxaa looga baahan yahay inaysan noqonin qof iyo labo iyagoo ishayee mujtamacu inay lafahooda ka ilaashadaan. dowladaha iyo maamulada meesha jooga xil baa saaran dheeri ah, xilkoodina runtii waa gabeen. hadda ka hor baa waxaan idhi dadku waxay u qaybsameen 3 dile oo shabaabka iyo wixii la halmaala ah, dayace oo maamulada dadka magacooda iyo masiirkooda gacanta ku haya laakiin tooda ku mashquulsan oo ummadda dayacay, iyo daawade oo innaga ah oo muxuu leeyahay qofku war yaan lagu soo raacine indhahaaga ka fiirso oo xaggaa ka bax, ayadoo faldambiyeedka la samaynayo oo uu wax ka qaban karo. meelaha qaarkood qof baa lagu dilayaa 10 ruux oo bisoolada haysta agaar ka dhawaa kana cararayaan. war waxa noocaas waa musiibo quraan laga akhristo billahi calaykum. sidaa darteed maamulada xil baa saaran, dowladda federaalka xil baa saaran. aaway ciidamadii aad soo tababarteen, aaway ciidamada mucaarad ku cabsiinayseen, aaway ciidamada lahideen danab iyo haramcad iyo gorgor iyo maxaan ku dhahay isha kobra, aaway billahi calaykum. dadka marka shabaab laga celinayo ma la waayayaa? marka iyaga loo xoog sheeganayana ma la helayaa? yay ciidamo u yihiin nooca hadday yihiin? 5 sano maxaa laga shaqaynahayay? eeraboorka daraad la galay, maxaa lagu galay? maxaq baa eeraboorka haddii la galay madaxweynuhu aamin ma yahay? ra-iisul wasaaruhu aamin ma yahay? saraakiishu aamin ma yihiin? ummaddii waa dayacdeen idinku lafiin horta ilaashada awalan wa qabla kulli shay. 2 siyaasad baad isku ceyrsanaysaan, mucaarad iyo kuwa hadda xoog ku haystaba. adeerow siyaasiga loo baahan yahay maalinka maanta ah waa siyaasi waddankaas amni ka dhigi karo, shabaab ka celin kara dadka. wax kale ha isku daalanina. ninkaas ragga ah baan rag u naqaanaa, kaasaa noo siyaasi ah, kaasaa noo madax ah. nin ku fashilmay ama la shaqaysta nooma aha nin matala. soomaaliya haddaba maqla, qofkaan dhiiggeenna badbaadin karin oo cadowga waxa weeye isaga daraaddii u socda annaga nagu laynaya aan naga celin karaynin nama matalo, inamana matali doono. taa macnaheedu maaha dowladda ha lagu baxo, laakiin taa macnaheedu waa maxay? dowladdu xilkeeda ha gudato, shacabkuna dowladda ha ku kaalmeeyaan, oo shabaab iyo dowladdu ma sinna, waa un isdhaamaan. gacan ha lagu siiyo, camal shaydaan bay ka shaqaynayaan, ha laga soo jeediyo. cidda imaanaysana ha laga fisho shuruudo sax ah oo bulsho in lala galo. oo waa maxay? war adeer naftayda ammaan mu u helahayaa, dalkan ma ku noolaan kara sida adduunka loogu noolyahay? dhiiggayga iyo ubadkayga iyo waxaa la yidhaha maalkayga ma ilaalin kartaa, ma badbaadin kartaa? ninka loo baahan yahay ninkaas wey. geesi dhaliya nabad baa loo baahan yahay, geesi dhaliya cadowga inuu qabtaa loo baahan yahay. adduunweynaha meel walbay ka jiraan xisaabaad noocan oo dowladaha ka soo horjeeda, laakiin dowladda been u sheegta oo waxa weeye awoodda tabar ugu been sheegtaan ka wada, oo maxay ku yidhaahdaan? ma dhici karta inaad ku ciyaartaan qarankeenna, waa gaalo. adoo muslim maxaa lagaga baahan yahay? dadka hortiina in lagu qasho siyaasiyiin ma aha, idinkuna aad isu muuqataan. ciidamada diyaaradaha inta lagu qaado hadda meel laga dejinahayay oo dadka maxaan ku dhahay argagax ku riday meeye, maxaa eraboorka loogu difaaci waaye? maxaa aamina loogu difaaci waaye? allah u naxariisiyo intii la dhimatay. maxaa dadka mas-uuliyiinta oo khibradda soo yeeshay loogu difaaci waaye? war waxaad ku dhex jirtaan wax la qarin kara ma aha. sidaana ummadda ku hor joogi maysaan. ummadda tanna waad ka reebteen kayrkeeda. ilahay ka cabsada subxaana wa tacaala. horarkaas ummadda ka qabta waajib weeye, xaq weeye. wax ka xaqsan ma jiro in shabaab ummadda maalinka maanta laga qabto. halkaa dagaal baa bannaan. aw ciidamadii badbaado qaran oo laha maxaan ku dhahay isheeg derbiyadan uga daadanayna farmaajo ka soo ridaynaa ka soo saaraynaa. ilmaha difaaca, haweenka difaaca, difaaca sharafta difaaca, yacni waxaa la yidhaha odayaasha gablada iyo difaaca, dadka aqoon-yahankoo la baabi'inaya difaaca. wahaluma jar. taasi waa taas wey. ganacsatada ilahay ka cabsada subxana wa tacaala. lacagta baadda oo aad bixisaan haddii aad ku abaabushaan ciidamo idin difaaca shabaab waa iska qaban kartaan. been yaana isu sheegin, yaana been isu sheegin. lacagta aad bixisaan haddii qof lagu dilo amaam allahi adaa lagu keenaya.
markaasaa la leeyahay rabbi sal haada fiima qatalanii ilaahu ka weydii muxuu ii dilay markay lacagaha baaddaa qaataan camaliyaad kor bay u qaataan kor bay u kacaan marka inaad quudiso kii ku dilayey oo ubadkaaga dilayey oo xaaskaaga dilayey oo ilmahaaga dilayey adna aad isu haysata fii maaman inaad tahay arrintaasu dabir xumo wey ganacsatada marka waxaa laga rabaa inay ilaahay uga cabsoodaan maalka ilaahay uu siiyey isu taga is aruursada oo haddee waa is ognahayoo ganacsato ay la dagaalameen nimankan waxaa la yidhaahdo isha inkaarta qaba oo baadda qaadaan ognahay oo iska dhacshay idinkoo dhan ay isu tegay maxaad qaban kartaan reer koonfur waxaan ku leeyahay oo kale ilmaada rayaalow dadku qolo walba wax bay caan ku tahay rag dagaal iyo xabad loogu booteeyo maydan ahayn xabashi baad iska saarteen qabqablayaal baad iska qabateen soomaali isqabatay baad waxa weeye siliga gaarsiiseen war 2,000 oo wiil oo shabaab ah in la iska dhex saari waayo oo la qaban waayo oo salaaddii laga tukan waayo arrin laga garaabi kara ma aha aynu isu garnaqsanno nin baa islaam baa laga sheegay ninka xooggaale gabadhayda kama dhali waayine hagar baa jirta war shabaab la iskama celin waayine yaan shabaab loo loogin ummadda qolada kaloon la hadlahayo waxa ay tahay dadka culimada ah culimada xaq iyo inay caddeeyaan oo bayaaniyaan ayaa saaran markan oo kale doorkoodii weeye inay sheegaan waxa kan dhacaya inaanu xaq ku dhacayn naftu ka raaci mayso naftu ajal bay leedahay inay ummadda u sheegaan waajibka ka saaran si ay cadowga isaga qaban lahaayeen waddankan uu nabad noogu noqon lahaa xadiidkii nabigu waad wada garanaysaan waadna naga badisaan oo ahaa qofka khudlaan ku sameeya ee garabkiisa ka baxa qof muslim ah xilli uu hiil uga baahan yahay ilaahay baa isagana garabkiisa ka baxa maalin hiilkiisa uu baahay u qabo yaanan ummadda garabkeeda laga baxin xaqa ilaahay uu idin barayna yaan lala aamusin oo kollay idin daynmayaan oo idinkaa kawaanka koowaad u saaran marba haddaydan raacsanayn waayo diinta ay rabaan waa diin dhinacooda laga soo galay dadka xaqa u bayaaniya qolada xigtoon ku darahayo oo aan doonahayo inaan wax u sheego waa mujtamacow xaq waxaad u leedihiin inaad iska difaacdaan waxa kan dowladihii hadday ku fillaan waayeen shacabkeenna waa wada hubaysan yahay qabiil baa loo hubaysan yahay qof baa loo hubaysan yahay idinkoon dowladda ku duulayn waxa yara noo dhisan aan duminaynin ha la sameeyo ciidamo la shaqeeyo dowladda ammaanka kala shaqeeyo xaafada la isugu xirmo yaanan gacan la siinin shabaab in ay fuliyaan falal noocaasoo ijraam ah oon annaguna mara ka noqonno oon madaxa hoos u rogno shabaab waxaan ku leeyahay bil cibaadaa soo gelaysa walaalayaal dadku waa cibaadaysanayaan masaajidday gelayaan ha laydinka cibaadaysto oo ha ku cibaadaysanina dadka oo ilaahay ka cabsada dad cibaadaysanaya cibaado u soo meeshaa ma aha meel lagu cibaadaysan ma aha waa ijraam waa munkar waa cisyaan waa alle ka furasho waa kabiiro dad muslimiina oo sooman inaad adigu qorsho ugu fadhido saad ku qarxin lahayd saad ku dili lahayd saad ilmaha awaan uga dhigi lahayd dumarka saad araamil uga dhigi lahayd waalidka gablan uga dhigi lahayd arrintaa caqli dhaama sidaa iyada ah diin ma jirtee la imaada ogaanadu ha idin gasho oo ogaada waktigu waa isgurayaa maalmuhuna sidan ahaan mayaan maalin baa jirta aydan jirin maalin baana soo socota aydan jiri doonin taariikhdiina wuxuu hambaysta adduunya aakhiraba إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم خذ الشباب أخذا شديدا اللهم خذ الشباب أخذا شديدا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا غدقا عاجلا مجللا غير آجل اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تأخذنا بالسنين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الهالكين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد